ani waxaa la yidhahaa Riyaaq. Kusoo dhawaada barnaamijka la dhaho Adaa Lagugu Talagalay. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrimaha ku saabsan Raxmo nolosheeda. Kusoo dhawaada Raxmo. waa mahadsantahay Riyaaq. Raxmo waxay sheegaysay saddexda caruur la qaatay da'dooda iyo see ahaayeen. saddexda caruur da'dooda waxay ahayd 10 jir 8 jir 6 jir. marka waxay ahayd saddex aan saaxiib nahay oo sariirta way isku dagaali jirin. anaa kula seexanay waa sheekeysan jirnay, way heesi jireen. waxay qabeen ciyaalaha ku ciyaaraan oo lagu heesa. marka waxay ahayd ilmo aad iyo aad mar kastaba ay ag jooga. teeda kalena waxay ahayd inta ay bixin subaxdii habeenkii waxay fiirsadeen seedhe oo ah ka sheekeynaya taariikhdii Yuusuf. oo markii Yuusuf walaalihiisii ceelka ku rideen oo kasoo bixiyeen sheekadaas dhan markay fiirsanayeen inaan wiilkeyga yar Yaxya u fiiriyey. aan waxaan dhahay markaasuu yidhi hooyo maxaa iga fiirinaysaa? Yaxya wuxuu ahaa wiil yar cad oo ilmaha ka yar cad oo intana wuxuu ka lahay calaamad madow. markaasaan dhahay haddii adi hataa saan kugu dhacdo waa inaan si fiican kugu fiiriya oo ku xasuusta calaamadda sada weynaatid. iga da aniga saas mihi oo dhahay. markaas kabacdi waa qosolna waa kaftanay. kabacdi wiilka kale ataa goosa xanuunaya subaxdii la wadaayay wuxuu lahay dhakhtarka ilkaha 8 sucuula. waxaan hal cunugaa dhakhtar halkaas cunugaa ku darsanina way ku darsadeen. laakiin isagana habeenkii u duceystay oo wuxuu yidhi hooy ilaga ay xanuuna ii duceeyey. waxaan dhahay ciise masiix dhiiggiisa ku caafimaadaysa. ilaahay wuu ballan qaaday qof alaala qofkii dhaho magaca ciise waxaa waaye asaga dhaawiciisa oo ku caafimaadaya. ballanqaadka oo ku yaala kitaabka quduuska wuxuu ku leeyahay asaga dhaawiciisa waan ku caafimaadayna. waana ugu duceeyey inuu caafimaado gacantan saaray magaca masiixiga inuu ku caafimaado oo masiixiga dhiiggiisa inuu ku caafimaado. markaas wuxuu dhahay hooy waa caafimaaday lugba ay xanuunayso dhahay waa u duceeyey. waxaan dhahay magaca masiixiga waa caafimaad qabtaa. hadda maxaa dareentay? wuxuu dhahay waa caafimaad qabaa. marka ilmaha wax eed aan isla hadli jirnay aan wada sheekeysan jirnay oo ilaahay jecel oo ilaahay ku kalsoon. yacni meeshan shaydaan soo dhexgalay laakiin waxaan ogahay aan aaminsanahay in shaydaan shaqaynaynin. waqti uu leeyahay waqtiga oo ilaahay imaanaya uu leeyahay waqti stop. shaydaan ma shaqaynayo. waxaa shaqaynaya kelmadda ilaaha iyo ilaaha xaqa ah oo ilaaha samada iyo cirka abuuray. kaas oo qalqiga iskale, kaas oo hadalkiisa lagu soconayo, kaas oo cid alaale ciddii oo u hagaanta oo hadalka ilaahay qaadata oo masiixiga ah oo ciise masiix ah qaadata oo u tagaya aabbaha samada joogo. yacni ilma cabsi la-aan yacni waxa ka celin kara ma laha rabbiga xaqa ah. marka saas la aligeeda ayaa ilmihiis waxdi ku baxeen ayagoo duceysan. 2 wiil iyo hal gabar. gabartee ahayd gabar aad aan saaxiib u nahay waaye Maryama la dhihi jiray. Maryama waa jecel oo Maryama waa gabar fiican. Maryama waxay ahayd saaxiibadeyda, waxay ahayd gabadheyda. yacni maxaa ku hoosay gabartaan soo xasuusatay? Maryama waxay ahayd gabar aan jecelahay waan ogahay. waan ogahay Maryama inay meel fiican marayso. yacni mala hadashay Raxmo Maryama markay baxday kadib? Maryama waa ogahay inay meel fiican marayso waayo waa la hadlay. lama hadlin 2 sano ciyaalkaas laakiin hadda caloosheeda waxaa ka muuqata farxad badan. yacni ilaahay wuxuu leeyahay ha baqid. ilaahay wuxuu leeyahay ha baqin waayo shayddaanka awood ma laha, cadowgana awood ma laha. anaa ka sareeya, anaana ah kuu hogaamiya. waqtigaa imaan doona cadowgaaga lugaaga hoostooda ay mari doonaan. waayo waa qoran tahay cid alaala ciddii rumaysata masiixiga oo qaadada dhiigga masiixiga in ilaah boqorka hortiisa ay istaagayaan oo ilaahayna yacni rabbiga xaqa ah inuu yacni siinayo xaqiisa. waa ogahay inay Maryama ku jiri doonin gacan cadow, ay ku jiri doonin gacan shaydaan. shayddaanna ma xukuma, cadowna ma laha. waxay xaq u tahay ilaahigeeda iyo waalidkeeda qofka si fiican u soo koriyey. Maryama waxay ahayd qof caqli badan oo bin aadankana kula dhaqanta hadal wanaagsan.
qof kasta ee salaanta waxay leedahay hebel waa ku jeclahay waxay siinaysaa yani way qabsanaysaa waxay leedahay waan ku jeclahay waayo in badan kuma arkin maxaa dhacay waxaa ahayd qof aad u caqli badan qof wax ka barataan way ahayd way baratay yani kitaabka quduuskan inta yareed waa la beri jiray ciyaalka yani meesha cadowga oo wax weyn ka arkay markuu arka qofka ilaahay u adeegaya yani cadowga wuxuu kuna yani shaydaanku wuu dhexgalaya qofka bin aadanka wuu iska horkeenaya qof kasta asaga tiisa wax u ah yani xur u ah laakiinse anaga diin ma fiirna diiman badanaa jira laakiin diin kuma dhaqmo dadka diinta haystan shaqo kumaliya qof kasta tiisa laakiin aniga waxaan xiriir la leeyahay ilaaha samada fadhiya ilaaha xaqa ah hadalkiisan ugu tagaa hadalka masiixiga dhiigga masiixigan ugu tagaa anoo u maraya يعني وأوجه ربي إنه يهجمنا عروتي أنا كم بقى كم فكره وأي بلنقاد بنقول هاي إن عروتي ماشي جوكت له إلى النهاية هذا وكست دبس عضنا إن وقت والله دمانا يعني كهري دونا لكن سبحان من سنة هاي نك أضيع هو حسمي إن أوجان دونا مالين أوجان دونا إنه قلت سمي قلت كيسنو قادن دونا إن أصو صفر إلما إسلامات وسوي والد هاي أو كدرن أتا عروتيس inuu dhibaatayaal u horkaco inuu wato oo sida oo dad dagaalamaya kale iyo kooxda dagaalamaysa kale inuu wato diyaarad u saarto oo midka uu dhalay ataa duu fahmin ataa inuu yani u baahan yahay isaga ataa kiisuba caawin la ayay xagga maskax ahaan hadduu asaga wax bartay asaga hadduu shaqaystay oo ayaga business leeyihiin ataa yani inuu asaga kiisa caawiyo oo weyn inuu caawiyo xagga maskaxda kala dagaalamo oo yani oo sida wiilkayga maskaxdiisa aad u naqana inuu waqti siiyo kiisu ahay u caawiyo maaha inuu culays kale inuu usii saaro oo la wato jidka ku dhaco laakiin taasna waxaa qalad kugu dhaca qof kasta qaladkiisa ogaadaa maalin buu ogaan doonaa qaladkiisa yani maalintaas inuu qalad hadda aan hadlayay waxaa laga yaabaa inuu qaladkiisa ogaaday ilmihii way kala baxeen halkan riyaaq waxay la aadeen booliiskan wacnay booliiska markaan wacay waxay dhaheen baabuurkii ay ku baxeen waxaa laga helay tembara magaalo la dhaho kabacdi waxaa la ogaaday isla minadkii waxaa loo diray Rosia loo diray Sweden loo diray maxaa la dhahay warqabad booliiska waxay dhan wax yar ka bacdi elborka lagu arkay labada nooc sababta caruurta sawir qalad ay ku kaxaystaan lama arki karo laakiin caruur saddex cunug way wateen noocaas isku markii wax kama qaban karno diyaaradii 6 minute ka hor ayay duushay caruurta hadda istahleed hadda caruurta hadda way ku daawanayaan maxaa la inta ku dhahday hadda u sheegtay waa dhici kartaa ilaahay wax kuma aha inay daawadaan waan ugu faraxsanahay waa caruurtaydii cid iga xigdana ma jirto cid iga qaadi kartana ma laha waan ogyihiin saaxiibtinimada iyo waalidnimada galgacaylka kalsoonida farxadda iyo madax banaanshada ay kusoo koreen nimcada ilaahay sii hooyo wanaagsan way ogyihiin yani maanta ka bilaabataa hadday arkaan yani waxay ogaanayaan yani shaydaanka wuxuu la taliyey inuu qalad sameeyey cadowga la taliyey inuu qalad sameeyey waxayna maskaxdooda iyo qalbigooda ka dagaalamayaan siday igu arki lahaayeen iyo sidii dadkii qaladka galay hata iskaga cafin lahaayeen sababta qofka biniaadamka ilaahay wuxuu leeyahay qof kastoo dembi kaa gala iska cafi waayo annaga haddaan dembi galna ilaah baa cafis warsanayna hadda anaga ilaahay dembigeena cafinaynin sidee baan kan walaalkeenu cafi weyne maadaama annaga hadda biniaadan ana markasta mar baan dembi galaynaa dembigeena waa in ilaahay dhana ilaahuna cafi saas sida la eg ayaa annagana qofka dembi naga gal ina cafino aniga aata hadda kula hadlaya dadku waxaa sameeyey aata waa cafiye waayo haddaan dhawa ma cafininin yani ma fiicna waxay ana dhiba ii tahay qofka dhiba u tahay ana xiriirka ilaahaygiga dhibay la tahay sababta aniga ilaahay sida ku cafisa ma ilaahay ku caawiyo waqti dheer bay qaadatay maan jeclan inaan arko qof Soomaali ah in xiriir la yeeshto inaan fiiriyo يعني آمنادنا وقيانا ميران قد أسود ويستدك جورجاك يعني قيانا ميران بيبقى هاي بقى هسه أهات جعلك إلهي إيقو درتيس يجعلك إلهي إيقو يبريد إلى سي أجرت ربك حق عشان فدية ربك حق مسيحي جسدو أسجى إيجو أجلادي تركيسة أسكت طلبت الوحري أنا قدرت ويلا سيدا أنه بن آدم دمبير ناس كافية taas aniga waxa waaye kitaabka quduuska iyo qorayaan ilaahay siiyay raxmadaas marka ani waan cafiyay dadkii ilmeeygan iska cafin doonaan dadkii waxaas ku sameeyay yani calooshooda iyo nafsadoodana yani farxad ay ku noolaan doonaan wax qalad laga dhadhacsiyay yani waxayna ku dagaalami doonaan sidii u arki lahaayeen hooyadooda walaalahooda jecel
ilmo badan baa walaalo la ah nolol fiican ay ku wada nool yihiin laakiin shaydaanka hadduu rabay inuu xarag ku xirto ayaga dartooda dhahaan waxaan keena ilmihii sidii maxbuus waa ciyaalka la haysto waxaan keen marka adiga lacag soo dirtid ama kan yeel waay lacag loo diraa waayo ilmahan waxa dee awoodii iyo bidni-aadnimadii aad tiri nin madaxa ahay lacagan haystaa waayo sababta aniga lacagtaan isii leed ku qarash garay ciyaalka wax sii sababto mar 2 sano ka hor horta maqlay sheekadooda markii wareysay markii wareysay horta ay bixeenba way arkeen yani horta markii aan booliiska tagnay aan ka soo noqday sheekada dib aan soo noqday riyaaqay waxaa dhacday markii aan u soo noqday booliiska aan tegay gabadha saaxiibada ay timid booliiskii markuu saas sheegay ay bixeen ciyaalkii aniga nafsadayda waxay noqotay maalin cad mugdi ay noqotay waxay ahayd waqti samar ah yani waxaan dhahay nolosha waaba dhamaatay adduunka waaba madoowaaday yani cadowgana waxay u ahayd farxaday u ahaan lahayd laakiin ilaahay ulajeedo kaluu lahay iyo in uu yani sababahii aan ugu soo noqonay finland oo yani ingiriiska ugu soo noqonay inuu dhammaystiro shaqadiisii marka waxaa dhacday ilaahay go-aanadiisii ilaahay waa nimco badan yahay waa naxariis badan yahay marka ani mugdi ila naqatay maskaxda isdhaaftay hadda mar labaad maskaxdeeda inay isleeyahay waxbaa gaari rabaa aan dhahay aniga maanta nolol ma ii taala haddii caruurta adduunka ugu jeclaay leed cunug waxa imaba arkinba haddii la isla wata atamaba arki lena male saddexda inaan ka jecla oo kale wax iima sabarmay marka aan dhahay waxaa fiican in aan isdila aan dhahay saaxiibadayda aniga jidka weyn hay weygaas isku dilaya baabuurkaas ay jiiraaya raalli noqo iska baxa had laakiin intaan ku joojinaynaa waa maasan tahay adaa mudan hay daawayaal hadda fasaxa galaynaa waan kusoo laaban doonaa barnaamijka la dhaho cadaalku ku tookale waa maasan tihiin marka oo goolkii degaday iskool maa bilowday maxaad samaysay u dareemta camal ilaahay siduu ku caawin jira camal markaa keligaa eed camal ilaahay ma ka fikiri jirta camal maskaxda waxaa soo dhacday qofka ilmaha dhalay oo intaas ka maqan oo sanad kasta ka maqan oo iska imaanaya waqti walba baxaya wiil iyo hal gabartee ahayd gabar fiican maryam waxay ahayd saaxiibadayda waxay ahayd gabadhayda yani maxaa ku weysay gabartaan soo xasuusatay hadda barnaamijka waan kusoo laabanay meeshii joognay ayaan ka wadeynaa kusoo dhawaada raxmo waa maasantaariya raxmo hadaa inta fasaxda galin waxay sheegtay inta caruurtaa la qaatay oo markaa la qaatay adi dhan camal waa saddex gashay waxna ka sheeg meesha markii aan ogaanay riyaaqay in ciyaalkii la baxeen dadkii soomaaliya aadeen aniga yani meeshii booliiska markaa kasoo noqday yani waxaa dhacday maalin caday ahayd maalin fiican bay ahayd qoraxda aada u taala iftiin badan doog badan si kasta yani ilaahay raxmadiisa dhulkii ka muuqata hal mar waxaa dhacday inay mugdi ila noqotay yani nolol baad noolaanaysa isma aan oran ma aan ka fikirin 6 cunuga guri ii joogto 3 cunugoo yaryar waxaa ii muuqatay 3daas inay ahayeen 3da noloshayda naftayda inay hayeen oo kale marka waxaan dhahay gabadhii waan furay indhihii dhana ay bararay yani taasna waxay ahayd shaydaanka siduu sabarka u arkayay in aniga waashto yani dhulka aan ku dhaco fahmaysaa yani taladii shaydaanka koostay ahayd laakiin ilaahay ulajeedo kale ayuu lahay oo ahay ulajeedadii aan kaga soo noqday wadanka ingiriiska aan kusoo noqday wadankan liigu soo celiyey daqsi ma fahamtay daqsi ma aan fahmin laakiin ilaahay taas buu lahay aan ka wadaa yani aniga markii aan dhahay waa isdilayaa yani laamigaas isdhigaya yani gaarigu doon hay maro oo aniga dooni maayo inaan noolaado 3da caruur la-aantooda mar haddee baxeen ataa diyaarad ataa kama qaadin karo waa inaan isdilaaba yani nololba ima bahaba la-aantooda aan indhihii i barareen gabadhii saaxiibadee waa ii duceysay gacanta i saartay maya ilaahay waa ku jecelyaa ilaahay ilmaha wuu ilaalinaya ilaahay iyadoo yaabanba iyadoo markii hore biliif karaysanayn oo yaaban ayaa waxaa dhacday in oo ay si kasta ii tuugdo i jiido maya waa isdilaya ma noolaanaya hataa ma rabo inaan raadiyo suu ku yeeli karaa seesaa ku yeeli waxa bin aadan maaha wax aqli leh maaha si ciyaal koox ciyaal oo walaala isla soo koray u kala qaadi karaan xagga guur dartiisa day يعني قف مسكحديس دورينايا حكولا نوضع اللادو هدو قف كان مسكحديس دورينايا هدو كولا نولين يعني وادنا عيالكا وكلا انتالا نو وين الرأي له إلهي هدو الشرف سي هدي إلهي حول سي إلهي محيري حولي أنكو سي
ku dumi cid famil oo familkaaga oo dhiigiis ah mise ilaahay wuxuu yidhi xoolihii ku siiyey adiga ku noolow ubadkaaga ubadkiisna ku caawi marka meesha waxaa ilaahay waan yaabay ninkan weyn wuxuu sameeyey waxay ii taagan tahay in isdilo laakiin ilaahay raali kama naqanin shaydaankana farxad bay u ahaan lehed cadowgana gurbaankay tuman lahayn laakiin awal baa waxaa la yidhi masiixiga 2000 oo sano ayuu ka raayay shaydaan iyo cadow annagana waxaan nahay kuwa raaca masiixiga oo ciise masiix raaca waxaan nahay kuwii raismadii asaga noo raayay 100 jeer raayaan nahay waayo xoog kumaan helin laakiin hadiyad ahaana ilaahay noo siiyey ilaahay markii maskaxdeedii soo celiyey gaariga iska soo raacay anoo wareersan oo waxba ogeen subaxdii ata 6 cunug ata ayaga isdibaray ani wax uma aan karin guriga imid waa seexan waayo waan fikiray si kasta u fikiray yacni taladii ilaahay goostay ayaa imaan doonto markay saacadii ahayd 4 habeenimo ilaa 5 inta u dhaxaysay waan daalisa u ooynayay hurda ila dhacday hurdadii markii ila dhacday aan waxaan sameeyey riyadii aan liigu tusay nin baa idaba socda gadaal riya aragtay markaa seexatay arkay marka ilaa iyo 5 inta la gaarin 4 barkii ilaa 5 anoo qashinkii magaaladii magaal madaxdii anoo qashinka aruurinaya oo dholashinkii qamrigii oo wixii dadkii aruurinaya oo isla hadlay oo isku buuqi naag waalan ah oo guranaya ilaahay marka saas inuu ii firnina oo idaba socda anuu ilaalina waxaan sameynayo oo ilaahay malaa'igiisa ilaahay wuxuu ka wada ma ogi wuxuu ilaahay tala gooni leeyahay anaga bini'aadam intaas la eeganahay caqligeenana waa intaas laakiin ilaahay markaas asaga nala socda asaga caqli leh asagana na hogaamiya marka waxaa dhacday inuu ilaahay i tusay raxmo fiiri nolosha ku nooshahay maskaxdaada waa labo qashinkaa guranaysaa koombaha aruursataa dhalooshinka aruursanaysaa tan way noloshaada warqadahaas joornaaladan meesha ka aruurinaysaa laakiinse 6 cunug ayaa guriga kuu joogo shayddaanka wuu taliyey cadowga wuxuu rabaa inuu yacni markaad dhahay aniga hogaaminay adiga ma ilaah baad raacday mise shaydaan yaa u shaqaynaysaa yacni shayddaanka wax wuu sameeyey laakiin yaa iskale awoodda yaa iskale ma ilaahayaa awoodda iskale oo raismada iskale mise shayddaana raaynaya ilaah baa raaynaya raxmo ma rabtaa caruurtaas inaad korsatid 6 cunug 3 cunugna anigoo ilaahayga xaqa ah oo ilaahayga samada fadhiya ah ilaahay nafta ku siiye ah ilaahay ku umay ah ilaahay hadalkiis kuu soo diray ah ilaahay kiis uu jeclay kuu soo diray ah ilaahay kiis uu doortay ilaahay adduunka intuu jecel yahay kiisuu soo diray wiilkiisa waa hadalkiisa waa ciise masiix waa ilaahay xaq ah kaas ma raacaysaa hadalkayga oo ma qaadaysaa jidka yacni ma dabagelaysaa masiixiga oo muu adeegaysaa oo hadalkayga ma qaadanaysaa oo miyii adeegaysaa raxmo taasaa aniga aan kugu keenay meeshan in aniga i raacdid oo masiixiga aa raacdid oo ani ii adeegdid oo ana u adeega ciyaalkaaga 3daas anaa ilaalsanaya anaa iskale cid iga qaadi karta male waqtigii ani aan raali ka noqdo waqtigayga hadduu gaaro oo aniga raali ka noqdona waad arkaysaa sina muu dhibtoonayaan muu gaajoonayaan shaqo kuma laha wax adna 3dan maxalin kartaa oo yacni muu adeegi kartaa ilaahgaaga ama waxaa rabta noloshan inuu shayddaankaa faa'iidaysto cadowgan ku farxan maya ilaah waxaa rabaa inaan ku raaco kuu adeego wax alaala aniga aad taadaan ku imid waddankan ma imaan laheen yacni maantan waa ka fiican tahay ina maanta waddan ay ku dhashteen waddan ay ku koreen waddan laga yaqaano waddan dadka dhan yaqaanaan waddan dad dhan ay qiimo u leeyihiin saaxiibo badan ay leeyihiin eedayaal abtiyaal oo dad oo soomaali ahayn oo ah dad kale oo walaal adduunka dadka cadiimada waa la wada dhashtay ilaahay un baana wada uumay yani dad badan ay leeyihiin dadkoodii am arkaya qaladka lagu sameeyey ayagaa u duceynaya ayagaa ilaalsanaya ayagaa hataa u duceynaya ilaahayna u ilaalinaya marka ana 3daas ani igu halay adna 6dan nu kori oo yacni ha siinin jid ha siinin cadowgaaga ha u jilcin waana ha agtaada boos ha u banaynin cadowgaaga iyo shayddaanka adkayso xariga ilaah hadalka ilaah ina adkaysatid dhiigga masiixiga asaa ku hogaaminayo dhiiggaas ayaa yacni ilaah boqorka ah asaana ilaalsanaya hadalkiisa haddaan ku socono ilaah carshiga fadhiga wayna ilaalsanaya oo asagaa markasta ruuxiisana la jiro
يعني أنا كو قامنا الرع هذا الكيجا أوكي إلى هذا كراعية عد كلام الرعاية وما صنتي المية هذا إيه وجانايا إلى وان قف أنت قفينا أن هاي وحنا سمينا إقرار النقو إلى هو تسجل بهذا كذا وحنا إلى رالي النقو محنا نفتي ذا شلوا وضع الشيء كاس قال ذا يسمين الماء أبغى دور عن أسجن أنيا هو قامنا أنيا مسكعدي سين كشقينا يسوق وحرور صد أسجعت إلى وعابنا صبت أسجعت إلى وما دي سوا إلى كي سوا إلى أساس كل إلى أني أسجع وقسمنا إلى أسجن أنا فاهم سين هاي عقلي وقعر الميسو كأرور صد ده أصل هذا كي وحنا سمين كرو بس كحد داوع أكو جالسين أنا بدلها أسجن أنا قعنتي أول بقعنتي كوسمي بني آدم كان أنا أول بني لها أنا هو قامنا أسجنا سو الميس وأركو أنا كان إلى سنة هذه كوا كان إلى سو رع مسيحي هذا أنا يكو إلى يكو ما علناي عن كذي عن يعني دعيستي جلبار لك كذا إلهي وضعكم إلى وأنا يقف أنتي إن شاء الله الدم بيجلي هي مسؤوش عن جلي يعني بن آدم ناس كذي يعني وإس فيري مرايد أسكو فيري هذا السوي كاي أوكي ninkaas ilmaha wada dhashan ilaahay wuu ku tusi xariyadaas lagu cadeey inaan jidkaas ku dhaco oo madaxa tooro ilmahan shalay ilaahay si kuwan buu ilmi isku siya loo dhalay kuwan badeeq ilaahay si waa inta joogo u baahay in la xanaaneeyo dharka loo dhaqo cunto markii dhaxdan xirtay ilmiyay hoosha u galay qasaalada dharka u geeyay cuntadii u gariyay magaalada ay dadka ay arkeen anigoo khatar ah oo habi iska ilaahay raxmadiisa ilaahay caafimaadiisa hal mar le ma yaabay markay ku arkeen adoo way yaabeen haya allah raxm saasa kugu dhacday ina waalata u maleynayeen waxaas dheen raxmo ilmahaas ilmahaas la kala qaaday maba noolo istaagi ka dhacay waa hal dhana ku fikreenay way waalad imaba waalan waxaan dhahay ugu talagashay shaydaanka uu rabay laakiin ilaahay raali kama naqanin hey maskax ma leedina ilmaan aabahan waa wada dhalnay hadduu qaatay dambi si fiican kuma qaadan laakiin sidaas ilaahay ku shaqale ani lix cunuga isu weys ama santa waqti jaanis aan ilaahaygeega ya idsi ku sameeyo ilaahay ku raadiyo oo ilaahay ku bar aan ilaahay aan rabo inaan sii barto waqti badan aan haystaa iskool baan rabaa inaan galo waxyaalo badan aan rabaa inaan sameeyo ana bas ilaahay wuu ila hadlay wuxuu dhahay haya maxaa sameynaysaa raxm uga waxaan rabaa inaan galo iskuul baan galay oo kitaabka quduuska aan ku barto taasna waxaa jaanis kala ii soo baxay yani saddexdan waa weyn saddexdan waxa dhaqsi ma gashay marka caruurta bixin ama caruurta markay maya dhaqsi ma galin waxa ka soo wareegtay 6 bilood oo kala ka soo wareegtay iyo 7 bilood waxay tahay intaasna yani maalin kasta waxaan aadayay kaniisada sidii af Soomaaliga lagu yaqaan caruurta waaweyn say ahaayeen meel hadduu shaydaan soo galo shaydaanka inuu wax kasta qasuro ani jaajkayga aaday ilmeyga u duceynay waxaan helay ilaahay wuxuu isii awood kale ilaahay wuxuu isii maskaxdeeda dhan wuxuu ka dhigay yani qof cusub oo kale yani meel aan iska dhigay sheekaas isku markii way soo waceen hay raxmo hee allah qaladan sameeyay maqsoonta allah ma rabin inaan soo wato dada isku diray walaal ma imaanaysaa duway ilmaha ma wadanaysaa waxaan dhahay wax soconaya ku hadal wax soconayna waa wada Soomaali ma soo wadata ku ahaad waan damii soo fahamtay marka ku dhaay maaw inuu aan isii xad raba ma isii xad kara qof weyn baan ilaahay bala shaqay qof ilaahay la shaqay ma xad kara ilaahay saan malaa'igiisa ay hogaaminaya ka bacda kaarkii ugu hadlay waan qabtay waan jijibiyay waa tuuray sababta maskaxda in laga daalay ma rabo inuu meeshan shaydaan dagaalamay waan arkay arrintan ilaahay iga balan qaaday inuu xaliyo yani inaan isku lugooyo ma waqtigii ku dhumay yani waqtigii waa inaan ku dhumiyaa sida ilaahay u raadinahay sida ilaahay u bari lahay sida ilaahay jadwalkan iyo cadawgan iyo balaayadan ilaahay dhinac u tuuri lahay oo dadkii u fahamsiin lahay inay qalad leeyihiin qaladkooda afaaro loo dirsan inay galaan inay famil afaarood galaan qof kasta xaq u leeyahay xaqan uu leeyahay noloshiisa ka bacdi aniga gurigii aan deganaay markaas waaba ka guuray guri kale la iga siiyey meesha oo walaashii deganeed agteeda markii la isii shaydaanka ma harayo haddana wuxuu isku dayay ilmihii weynaa inuu qaso ilmihii weynaa jidka loo istaaga ilmihii iskoola u dirsanaysa ilmihii guri kuma haynays dabcan ilmi waa weyn way 14 jir way 12 jir way 13 jir way waa 15 sano 13 sano 12 sano ka bacd ilmihii guri kuma haynays iskoola aadaya suuqi aadaya hooyadiina sahan waay kana ku dhacday afaaro ayaga loo gelin hooyadiina masiixid maxay ku jeclaatay cuntadeed ma cuntiin kan ma yeeshin dabcan cuntaday cunaya had laakiin intana ku joojinayna waa maasantahay adaa mudan walaalayaal hadda qaybta ka hadlaynin raxmo nolosheeda intana hadda ku joojinayna laakiin waa wad doonaa haddaa rabta intaa nala soo xiriirtiin waa kana emailkeena iyo telefoonkeena waa maasantiin